karto waxay gaadhaysaa marka u dambaysa inaad ogolaato nin walba iyo reerkiisa iyo qoyskiisa iyo tuuladiisu madaxweyne ka yahay oo maxaad ku diideed sooma kor haddaad ka soo degto oo mabda'a kore ka soo dhaadhacdo meel ku celinaysa ma jirto caqlina ku celin maayo daliil sharciyana wax kuma celin kartid ma celin kartid mana hor istaagi kartid ilaa meesha ugu dambaysa waa in la sii kala jajabo arrinkaana iska dhaaf sharciye ruux caqli lama yidhaahdo culimo iska dhaafe caama kuma hadasho sooma waxaasaa ka dhalanay marka mar hadday taasi imaan karto buu leeyahay ibn xasm alayhi raxmatullaahi iyo culimmadu waxay leeyihiin mar hadday halkaasi waxaan ka laazimayo halkaa kore ha la joogo ha lagu celiyo wixii ka hooseeyana ha la yidhaahdo maya sida nusuusta ku soo aroorto waxay culimmadu leeyihiin intan hadda jirtee la qaybsan yahay la kala yahay dawlad walba inta wada jirtaay sideeda ha lagu ilaaliyo yaan la sii kala qaybin Soomaaliya soo dawlad ma ahayn yaan la sii kala qaybin sacuudigu soo dawlad ma aha yaan la sii kala qaybin yaman soo dawlad ma aha yaan la sii kala qaybin dhibka yaan la sii kordhin hal nin oo culimada muslimiinta oo dhahaya arki maysid dadka isku dawladda ah ha laga shaqeeyo sidii inta loo qaybiyo laba dawladood loogu kala sameyn lahaa waxay ka hadlayaan culimadu wax way waaqican samaysmay ha lala noolaado hana laga shaqeeyo sidii la isugu keeni lahaa inta wada joogtana ayaan la sii kala qaadin oo la sii kala qaybinin oo dawladda laga samaynin mas'aladaasay marka culimadu ay tilmaamayaan mid baan marka hadalka u leeyahay yaan la idin ku dhigin hadallada qaarkood oo culimada ka soo arooray baa waadada qaarkood waxay u dhigi karaan inay yiraahdaan waa kuwan culimadii waxay leeyihiin madaxda hadda jirta hal adeeco wadamada hadda jirta ay sidii jirta hal lagu ilaaliyo waa sax laakiin hal lagu ilaaliyo macnaheedu waxa marraali baan ka nahay hal lagu adeeco marraali baan ka nahay ma shariicada sida raali kaga kuwa hadda jira hal sii kala gooyo ma cid baa qabta maya raali lagama ah laakiin waa lagu qasbay wax dantu ku baday iyo waxa doorasho u leedahay Soomaa waxay dantu ku baday iyo waxa doorasho leedahay waa kala duwan sidan dantaana baday haddaan ka guuro dhahnana dhibkaas sii kordhi sidan aan ku haynaynaa laakiin maxaan ka shaqaynaynaa intii suurtagal in la isu soo celiyo intii la midayn kara in la mideeyo intii hore sii wada joogtayna yaan la kala kaxaynin culimadu halkaasay marayaan ee cidda haysa inta wada joogta hal la kala kaxeeyo oo xaq baad u leedahay gooso xaq baad u leedahay dawlad baad noqon kartaa tan waad ka go'i kartaa waa ku garab taaganahay arrinkaasi wax weeyaan hal culimada islaamka ka mid oo qabaayay ma aanan arkin waxaan ku gabagabaynayaa masaladaasi waxaan aan doonayaa culimada Soomaaliya meel kasta joogaan mas'aladaasi in baxthi iyo baarid dib loogu celiyo mas'aladaasi in laga baaraan dego wadaadada qaarkood oo dawladaha yaryarkee kala yaacaya garab taagan oo xaq bay leedahay way go'i kartaa way tegi kartaa middan hadday tagto tu kala tegi mas'aladana hoosta ka xariiqa mas'alada hoosta ka xariiqa Somaliland hadday baxdo Puntland way bixi Jubaland way bixi koonfur galbeedna way bixi waana barnaamij mukhatat oo loogu talagalay waa hore la qorsheeyay balkan in qayb loo kala saaro ninka wadaadkee marka taagan ee way go'i kartaa balkani waa kala daadan karaa waa qorshe waa hore gaalad dejisay ayaad marka ku dhacaysaa ama ogow ama ha ogaan mas'aladaasi marka wax cilmiyan iyo sharcan ani siyaasi wareersan kama hadlayo dadweyne la wareeriyay oo muxuu ahay aan caadifa hayso kama hadlayo laakiin ninka shariicadu xiri karto oo diintu xiri karto oo qaal Allah iyo qaal rasuulu iyo xagee umadu martay iyo xagee maslaxadu ku jirtaa ninka garanaya ninkaasana aniga la hadlaya waana sidaan hadalka ku bilaabay dalkani haddii la yidhaahdo halla kala dhaqaaqo waa halla kala dhaqaaqo haddii la yidhaahdana waad garanaysaan meesha lagu dambayn doono nin walba waa garanay waa iska cadda
ما لا دهي كرا سؤاشان ku gabagabeynay ma la dhihi karaa caalamul islaami waa qaybsan yahay annaga inaan iska qaybsano maxaa mushkilo ku jirta jawaabtu waa may laana caalamul islaami qaybsanaantiisu waa khaladna cid lagu ma raaco khalad cid ay ku jirtana daliil ma aha sheekh dawladii dhan baa qaybsanay annaga haddaan qaybsano maxaa dhibka haddaan goono waa la kala go'ay daliil ma aha awoodaada adiga raac laakiin nin baa khalad sameeyay anuguna waan sameynaya daliil ma aha in dadku ay isku dhacaan dadka muslimiinta ee walaalaha ee wada dhashay ee wada degan muslimiinta inay islaayaan oo dhiigu daato oo ay isku mashaqoobaan ma keeni kartaa inay kala go'aan waan islaynay oo waana la laayo waa isku baabaanayo aw ma nasu reebanino hadda aan kala soconno suurtagal baa maya asxaab rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam baa miidaal inoogu filan reesham oo muaawiya hogaaminayo iyo muslimiintii kale oo ali ibn abi talib hogaaminayo muddo dagaal baa dhex socday waa la isku riiqmay umada dhan baa ku baaba'ay haddana marnaba nin culimada kamid iyo saxaabada ma soo jeedinin warnimayo reesham oo goonidiin u gaa dagaalku ay inaga istaagay baaba'anay shaamayna muaawiya u go ali oo intaada kale iska maamulo saxaabadii islaay iyo dagaalay dhacay iyo dhiigii daatay dhulka muslimiintu mid ahaada la taagnaa Soomaaliya masalada xigtay waxay tahay dadka muslimiinta waligood waa istili jireen dhiigu waa daadan ila qiyaam saacada uu daadan doona sida nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam laakiin dadkan istilay waa walaalo kala gumaaday iyo ka wax gumaaday haday muslimiin iimaanka walaalay ayagoo isdilay walaalay أيوة إسدلي مؤمنيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لبكوا حوضوا مؤمنين هدي إسلايان مؤمنين واي محل قدم بزيادة قدم إيسا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أيوة إسدلي ولا لي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف كي أدي الشيء إديكي سد هذه الشيء يا ayaa waxa lagu yiri waa walaalka quraanka sheegay waa walaalka adoo dilay ba walaalkaaye yaa idin walaaleeyay diinta idin walaaleeyay ummadda Soomaaliyeed diin baa walaaleeyay dal baa walaaleeyay dhaqan baa walaaleeyay abtir baa walaaleeyay luqad baa walaaleeyay dhinac walba walaalkay haday wax dhex mareen oo dhibaato isu geysteen kulli way isu geysanayaan ilaa haday socotaay kii shalay loo geystay baa maanta geysanay ka maanta loo geysanay bari buu geysanaya fitanku markay kacaan cidina ma fayooba laakiin in bulshadii muslimka ahayd ee isjeclayd ee walaalaha ahayd ee isla nooleyd ee diintu walaalaysay in lagu kala gooyo oo mar walba la karaaco qodobka waad istilay waa la islaalay kala lagu sameeyay saan isku sameeynay kana sameeynay oo siyaasiyiin barnaamijkaasi ay garaacaan oo ka faa'iideystaan arrinkaasi waa arrin halis waana mid keenaysa bulshadu inay si kala fogaato waa mid keenaysa in la yiraahdo Soomaali yahuud baa naga xigta wala abuurahay dhowr iyo 30 sano la abuurahay waa mid la keenaysa in la yiraahdo Soomaali xol baan nahay ummadaha kale naga xiga laana siyaasiyiin baa abuuray oo mudalla bislaynay siyaasigu suu ujeedadiisa u gaadho dadkan kadaata aan wacyiga lahayn ee bulshada waa inuu cabeeyo waa inuu ku guro waa inuu akhriyo waa inuu meel ku xidho waa inuu markaa kadib dantiisa ku gaadho arrintu inta kama badna wayla sharcan shariica qabto ma jirto dadkan waa dad walaale ah haday xataa dhibaato dhex martay dhibaatadu ma keeni karto in dalkoodii la kala gooyo dhibaatada dhex martay ma keeni karto in ayagii la isku diro dhibaatada dhex martay ma keeni karto in la suuqdadeeyo dhibaatada dhex martay ma keeni karto inta iyagu kala tagaan inay gaalo iyo shisheeye u galaan abadan wax diin iyo aqli iyo sharci uu qabo ma arrinkaasi marka caawa halka aan ku ekayno waa masalada qaybteedii hore ahayd shariicadu maxay ka qabtaa dhul muslima in la kala gooyo oo laba dawladood iyo laba madax loo kala sameeyo maxay ka qabtaa shariicadu islaamku waxyaalaha ina hayase
sabab iyo mubarrir ma u noqon karaa in dulka la kala gooyo oo dawlado kala duwan loo sameeyo waxa hadda ina haystaay horay caalamku ma u soo maray mase dhacday in lagu kala tegay inta caawa aan ku gabagabayno qaybteedii labaad oo inuu insha Allah taala habeen dambe waxaan kaga hadli doonaa heshiiskan la sheegayay muxuu dhib keenay muxuu sadaf keenay هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاه الله خيرا الشيخ وضعفنا صلاة لكن خير كلام كل ضعفني صلاة صلاة وضعفنا وقت جديد لكن خير كلام كتيرنا يدينا وقت جديد ما تجينا وين